السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعنو ونكسن داوديال كسو دوادا برامج كالصومالي اي سياسة وهبين والباح ليضان وكليان الدين سو قدبينو آلا وحينو برامج كسو قادنا حالدا حساسي اي سياسة الدالكا قضباد عاوة برامج كاتكا بغن دونتان ايا وحا كميدا ciidamo ku qulqulaya wisil iyo ujeedkii al-shabaab ay u weerareen deegaankaasi oo la helay ex madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo booqday dhaawacyada weerarkii wisil baaq culusna soo saaray shirkii xasaasiga ahaa ee doorashooyinka oo ka furmay muqdisho iyo dood adag oo ka dhalatay wararkii ugu dambeeyay baarlamaanka Puntland oo cod aqlabiyad leh ku ansixiyay codsigii uu soo gudbiyay madaxweyne Saciid Dani iyo qaramada midoobay oo si la yaab leh uga hadashay weerarkii bahalnimada ahaa ee al-shabaab ay ka fuliyeen deegaanka wisil haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqatay nagu soo biir subscribe saar gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto naga ilaabin markastana waxaan kaaga mahad celinaynaa sida dhiirigelinta aad inoogu sameynayso waa habeenimo ay sii baxayso isniin talaado ayaa soo galaysa taariikhduna waxa ay ku asteysan tahay 28 bisha June sanadka 2021 waxaynu u guda galaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena aynu ku horeynay ciidamo fara badan oo military ah ayaa waxa ay ku qulqulayaan wisil oo ah deegaan ka tirsan gobolka Mudug oo shalay aroortii al-shabaab weerar dhowr jiha ay ku qaadeen kaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 30 ruux tiro intaasi ka badanna dhaawacyo ay ka soo gaareen wararka laga helayo gobolka Mudug ayaa sheegaya in wili xaalad kacsanaana laga dareemayo deegaanka wisil oo ay shalay galinkii hore dagaal dhowr jiha ku qaadeen kooxdan isla markaana dagaalkaas uu ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labadii dhinac ee dagaalamayay iyo dadka deegaanka wili waxa ku taagan tuhun ah in al-shabaab mar kale ay halkaasi weerar ku soo qaadi karaan iyadoona halkaasi ay ka bilowdeen dhaqdhaqaaqyo military galmudug ayaa ciidamo dheeraad ah u dirtay wisil si ay u balaariyaan howlgalka ka dhanka al-shabaab ee deegaankaas laga bilaabayo ciidamada ayaa waxay ka soo dhaqaaqeen magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Hobyo iyo waliba Gaalkacyo sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda amniga galmudug wasaaradda ayaa shaacisay in ciidamadaas loogu talagalay inay ka hortagaan dagaalka ay kooxda al-shabaab ka wada koonfurta gobolka Mudug iyo ee bartamaha Soomaaliya isla markaana aan loo dul qaadan doonin waxaa xusid mudan in dawladda galmudug ay u dirtay gurmad ciidamo fara badan oo laga kala diray magaalooyinka Gaalkacyo Dhuusamareeb iyo Hobyo iyo deegaano kale oo gaaray nawaaxiga wisil kuwaas oo diyaar u ah in ay argagixisada darsi lama ilaawana u dhigaan maalmaha soo socda ayuu yiri wasiirka amniga maamulka galmudug Axmed Macalin Fiqi war-saxaafadeedka ayaa tacsiil loogu diray ehelada dadkii ku dhintay dagaalkii cuslaa ee halkaasi ka dhacay iyo dadkii ku dhaawacmayna ilaahay loo garjeeyay xubnihii ka dhaawacmay in Allah subxaanahu wa ta'ala uu u boogadhayo shirkii xasaasiga ahaa ee arrimaha doorashooyinka ayaa waxa uu ka furmay gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyadoo dood culus ay ka dhalatay qodobo muhiim ah oo la xiriira xaaladda doorashooyinka inkastoo shirkan uu dibad joog ka yahay Cali Guudlaawe haddana Cali Guudlaawe waa lagu qanciyay tabashooyinkii uu wadayna waa laga qaatay isla markaana xagga zoomka inuu uga qayb galo ayaa la rajeynayaa shirka golaha wadatashiga qaran ee looga hadlayo dardargelinta howlaha doorashooyinka iyo waxyaabihii ka hirgalay heshiiskii 27 May bishii aynu ka soo gudubnay Muqdisho ay ku yeesheen hoggaanka Soomaalida ayaa u muuqda in weji ka duwan wajiyadii hore uu ku furmay shirka oo uu gudoominayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa ka qayb galaya madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor koonfur galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamed Maxamuud Filish iyo madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen oo xagga fogaan aragga internetka uga qayb galaya zoomka ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxa uu ballan qaaday hogaaminta geedi socodka doorasho oo degdeg ah laguna kalsoonaan karo waxaana la soo saaray liiska gudiyada doorashooyinka heer federaal heer dowlad goboleed iyo xalinta khilaafaadka afayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Mucalimu oo galinkii dambe ee maanta si kooban uga warbixiyay shirkaas iyo qaabka uu ku bilowday ayaa hoosta ka xariiqay in been abuur ay tahay wararka lagu baahinayo qaybaha kala duwan ee baraha bulshada oo ku saabsan in isbedel lagu sameynayo doorashada
waxaana uu sheegay in waxyaabihii u qabsoomay madaxdan iyo waxyaabaha aan weli u qabsoomin oo keliya laga wada hadlayo, islamarkaana aysan ahayn arrintan mid muujinaysa in madaxda Soomaalida ay kala fog yihiin ama ay kala aragti duwan yihiin. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu booqday cisbitaalada la dhigay qaar ka mid ah dhaawacyadii kusoo dhaawacmay dagaaladii cuslaa ee shalay ka dhacay Wisil oo ka tirsan gobolka Mudug. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa u rajeeyay dadkan in Allah subxaanahu wa ta'ala uu u boogadhayo, isagoona muujiyay in si weyn uga waraacsan yahay mar uu booqday cisbitaalka Digfeer. xasan sheekh maxamuud ayaa warbixino ka dhageystay dhaqaatiirta gacanta ku haya dhaawacyada iyo maamulka cisbitaalka, isagoona bogaadiyay sida ay ula tacaalayaan dhaawacyadan. madaxweynihii hore ayaa ugu baaqay in loo midoobo dagaalka ka dhanka al-shabaab, wuxuuna xusay in lagama maarmaan ay tahay in laga ciribtiro Soomaaliya argagixisada maalin kasta leynaysa ummadeena. waxaan shacabka, mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer federaalba ugu baaqayaa in loo midoobo ciribtirka argagixisada. lama aqbali karo in cadowga laayo shacabkeena, ayuu yiri madaxweyne xasan sheekh maxamuud. waxaana sidoo kale ku weheliyay socdaalkiisa xildhibaan Mahad Salaad oo ka mid ah xildhibaanada isaguna ka soo jeeda dhinaca maamulka Galmudug. waxaana muuqanaysa in Mahad Salaad uu si weyn uga xun yahay sida wax u dhaceen, halka wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Al-Cadaala uu kaalin weyn ka qaatay sidii dadkan loogu keeni lahaa dhaawacyadooda magaalada Muqdisho dhaqaatiirta, islamarkaana daaweyn rasmi ay u heli lahaayeen. barnaamijka Soomaaliya iyo siyaasadda ayaad la socotaan oo si toos ah idinkaga imaanaya Haga Media. ku xirno mar walba oo noqo saaxiibka koowaad ee markaasi sida tooska ah xaqiiqda uga xiganaya. markana Puntland, baarlamaanka Puntland ayaa cod aqlabiyad leh waxa ay ku ansixiyeen codsi muhiim ah oo uu soo jeediyay madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Saciid Cabdullaahi Dani. baarlamaanka maamulka goboleedka Puntland ayaa maanta xaruntooda ku yeeshay kalfadhiga 48aad ee golaha wakiilada Puntland, kaasi oo ay soo xaadireen xildhibaano gaaraya 44. waxaa kulanka gudoomiyay gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil, oo ay weheliyeen gudoomiye ku-xigeenka koowaad Cabdicasiis Cabdullaahi Cismaan iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad Ismaaciil Maxamed Warsame. kulanka maanta ayaa ahaa mooshin ku saabsan in wax ka bedel lagu sameeyo xeer hoosaadka golaha wakiilada uu soo jeediyay guddiga shuruucda iyo cadaaladda, waxaana xildhibaanada golaha wakiilada ay ku taageereen cod aqlabiyad leh. 41 xildhibaan ayaa ku ogolaaday sidaa, halka hal xildhibaan oo halkaasi ku sugnaa uu diiday, ayna ka aamuseen 2 xildhibaan. dhinaca kale, isla fadhiga 8aad ee maanta waxa uu golaha cod aqlabiyad leh markaasi u qaaday ayna ka ogolaadeen ansixinta iibka dhulka laanta bangiga degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug si waafaqsan qodobka 52 ee dastuurka Puntland, taasoo madaxweynaha Puntland uu soo gudbiyay golaha wakiilada codsi ku saabsan ansixinta iibka dhulka laanta bangiga ee degmada Gaalkacyo. kadib codeyntaas ay u dhacday si hufan, islamarkaana 41 xildhibaan ay si weyn u aqbaleen, islamarkaana cid ka aamustay ay tahay 2 xildhibaan. cid diidayna maba jirto oo waan diidnay afkeeda ka tiri. gabagabadii ayaa fadhiga maanta waxaa wasaaradda maaliyadda golaha ay u soo gudbisay xisaab xirka sanad maaliyadeedka 2020 si waafaqsan qodobka 37 ee dastuurka Puntland. xisaab xirkaas oo lagu wareejiyay guddiga dhaqaalaha iyo xisaabaadka ee golaha wakiilada si ay warbixintooda la xiriirta arrimaha xisaab xirka 2020 uga soo gudbiyaan golaha maalinimada Sabtida ah oo bisha ay ku beegan tahay 3 bisha Luulyo sanadka 2021. isla wararka xasaasiga ah ee Wisil dagaalkii ka dhacay la xiriiran haddii aynu eegno, hay'adda Jamciyadda Qurumaha ka dhaxaysa ayaa waxa ay si weyn u cambaaraysay xaalada bini'aadanimo oo ka dhashay dagaaladii ka dhacay gobolka Mudug, gaar ahaan Wisil. Jamciyadda Qurumaha ka dhaxaysa ayaa ku boorisay dhinacyada ku dagaalamay halkaas inay ilaaliyaan bini'aadanimada, islamarkaana dadku ay u ogolaadaan inay noloshooda sii wataan. Wisil ayay shalay ku dagaalameen ciidan ka tirsan dowladda iyo ururka Al-Shabaab, waxaana la sheegayaa in askar aad u badan oo Al-Shabaab ah halkaasi ay weerar ku ekeeyeen. ujeedada Al-Shabaab ay u weerareen Wisil waxaa lagu tilmaamay in odayaasha deegaanka ay diideen in Al-Shabaab deegaanka ay qabsadaan. sidaa daraadeedna Al-Shabaab ayaa u sheegay wixii ka dhacay Bacadweyn wax la mid ah in halkaasi ay ka dhici doonaan,
iyadoona ay sheegeen guud ahaanba dadka deegaanka in tuun badan ay qabeen maalmihii ugu dambeeyay islamarkaana al-shabaab wax lala yaabo inay ka sameyn doonaan gudaha Wisil ay horay u shaaciyeen. xoolo far badan oo dadku ay dhaqanayeen ay halkaasi ku baaba'ay marka laga soo tago dhimashadii dhaawaca aadanaha halkaasi ka soo gaaray. guud ahaan waa naga intaa barnaamijkii Soomaaliya iyo siyaasadda oo aad si toos ah kala socoteen Haga Media mar walba ka dhigo saaxiibka koowaad ee xaqiiqda aad ka xiganayso. mahadsanid.